السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal waa ciise maxamuud weeye. waxaan videoga yar u duubay hadal ilaa xalay ku jiray maaragtay baraha bulshada oo ah fariin uu soo diray sheekh xasan daahir awoys uu soo diray, taasoo uu soo diray madaxweyne farmaajo uu soo diray. fariintaasoo runtii ahayd arrin loo baahnaa bay ahayd, runtii wax badan keenaysa. faallooyinka kolley wiilka kan way ku badanaysaa, wax badan buu ka hadlay, arrimo badan oo macquula iyo kuwa aan macquul ahaynba wuu ka hadlay. marka aniguna waxaan isiri dee aqoontaada yar wixii aad ka qabteedna ka dheh arrinta inta ay iga muuqato. hadalkuu ballaadhnaa laakiin inta ay iga muuqato anigu inuu waxaana uu ku soo koobayaa arrin muhiima ku sheegaya, arrin aada u muhiima runtii ayna tahay madaxweyne farmaajo aada uga fog, waana tamaanta maaragtay waxalili karta. sheekh hadalkiisa uu badnaa, taaniga ay qusayso horta aan ku horreeyo. anuu nin reer waqooyi baan ahay, dadka badan waa la socdaan, dadka halkan janalkani daawadayaasha way la socdaan. nin reer waqooyi baan ahay, qadiyadaan ka hadlaa qadiyadahan waqooyiga. arrintaa buu ka hadlay sheekhu. sheekha kuma raacsanay siduu uga hadlay. waxaan u arkaa sheekhu qaab caadifadaysan oo reeraysan inuu uga hadlay arrintaa, sida mas-uuliyiinta soomaalida ee kaleba ay uga hadlaan marka ay ka hadlayaan arrintaa. dee reer bay tilmaamaan, waqooyina reer ma dego, reero badan baa degan. dadka halkaa degana dagaalkii ahliga ahayna soo maray dhibaato weyn baa kala gaadhay. marka mar walba laleeyahay somaliland waxaana lagu sameeyey iyo waxaana lagu sameeyey, waxa weeyaan waa hadal aan maaragtay ku habboonayn ninka mas-uulka ah inuu yidhaahdo. waxa weeyaan dadna wuu dulmayaa, dadna maaragtay waxaanay lahayn buu siinaya. dadka waqooyigu iyagaa isdilay dagaaladii ahliga, wax badan baa ku kala maqan. waktigii hore ilaa xataa gobonimadii iyo intaana marna dadkaasu dad isku mida may ahayn. marka sheikhu arrinta uu ka hadlay waxaad moodaa beer buu ka hadlayaa, laakiin beelo kala dega waqooyi, taasuu ismaan dhaafiyey. hadal cadaalad ku dhisan muu ahayn hadalkiisu. markaan taa ka eego, hadal cadaalad ku dhisan muu ahayn. wuxuu sheegay in beelaha dabcan hadalka in la qaawiya iska fiican. isagu reer waqooyi buu yidhi, marka macnihi waxa reer buu ka hadlaya. reer waqooyi inta arrintii qabiil baa loo rogayo, waxaa lagu daray qabiil aanay ka mid ahayn baa lagu daray. taas waxay ku caddaynaysaa waqooyina wuu ka hadlayaa, reer buuna ka hadlaya. haddana reerna waqooyi ma digo, reerkeegii ma digo, isaan soo sheegay. ta kale waxaan ku garaadsaday ama aan sugaantii dee ab iga horreysay aan ka soo gaadhay soomaali inay tahay marka qabyaalad laga hadlo, soomaali inay tahay dir iyo daaro. anu beriya dambaan raxaweyn iyo qoryaha bartay, laakiin iyagii laftigooda waxay muuqatay inay soo 8 iyo 9 iyo waxbaa la yidhaahdaayo inay soo kala galeen labadii baa muuqatay. dad yow kale way jiraan, hase dadka labadaas unbaa lagu kala xidhiidhaa. marka weligeed baa dee meeshan reer sheekh saxaab uu ka hadlayo wadaadku, dee weligeedba dir baa lagu tirin jiray. markii wax la qaybsaday oo qabiil wax loo qaybsaday oo ay timi 4.5 iyo waxaasuna, qabiilkii dirti ahabaaba laba laga dhigay oo la qaybiyey. taasuna aan u arko inay tahay xaq darro.
laba qaybood baaba laga dhigay waxa la dir iyo hawiye hawiye dir baan u haysanay ilaa yaraantayda suugaanta waxaan ka soo gaaray hawiye dir bay tilmaamaysaa inuu yahay haddana wixii waa la qaybiyey markaa sidaa jasad bursi baaba lagu helay maaha ujeedadaydu inaan taa ka hadlaayo laakiin qaabka uu sheekhu wax u dhigay baa maaragtay waana qaabka mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhamina wax u dhigaa marka waxa weeyaan dee iyagay jirtaa ninka mas-uulka waxaa ku hadlaya laakiin qadiyaddu intaa waa ka dheer tahay waa ka gun weyn tahay reer maslax way ka gun weyn tahay kumana guulaysanaysa ninkastoo dariiqaa mara taa aan intaa ku dhaafay sheekhu dee waxyaaba badan buu usoo jeediyey madaxweynaha waxyaaba badan oo uu kula taliyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxay ahayd matalan wuxuu halkii cabdilqaasim oo kale ha noqon sababta maxay tahay cabdilqaasim isaga markii hore wuxuu ka hadlay isaga yani sababtay dadku ugu mudaaharaadeen oo usoo dhaweeyeen oo ugu banaan baxeen uu ka warramay wuxuuna ka warramay inay tahay wixii laga bartay 6 bilood ee uu ra-iisul wasaaraha ahaa wax nasiib keenay iyo dadaal uu isagu sameeyeyba matalan in caasimadda maaragtay ataana ku toosanaya moogtahay caasimadda muqdisho in laga xoreeyo shabaab nasiib baa keenay waayo farmaajo wuxuu la kulmay xilligii maaragtay amisom loo fasaxay inay la dagaalanto shabaab magaalada ka saarto ayuu la kulmay marka taasu nasiib bay ahayd laakiin tii waxaad moodaa farmaajo inuu si kale u bedeshay si kale u qaatay waad aragtaa maanta oo dhan dee haddeer ilaa intuu yimi dagaal unba ku baaqaya dagaalku kii hore maaha kii shalay maaha arrimihii isbedelay maanta shabaab xaggaad kula dagaalamaysaa uga tegaysaa meel baad ku maqlaya meel bay haystaan oo meeshaan waa lagu weeraraya waa kaaga tegaya berina way kusoo noqonaya marka waxaa weeyaan dagaalku kii shalay maaha arrinta weherisay waxay ahayd dee wixii ay sameeyeen moogtay sida xaqdarrada ahayd ee looga qaaday ra-iisul wasaarenimada taa laftigooda wax qalbiga soomaaliyeed maaragtay ku jiray oo loo soo dhaweynta ka mid ahay waxaa kaloo ka mid ahay dawladdii uu berigaa sameeyey oo dawlad xula ahayd ayaa lagu soo dhawey laakiin waxaad moodaa imaatinkan madaxweyne farmaajo u yimi wixii oo dhan inay isbedelay marka wuxuu u sheegay sida arrintaas uu sheegay wuxuu yidhi dadka cabdilqaasim baan berigii la taliyay oo waxaan yidhi dadka maaha dadku kuwa ku hareera jooga ya dadka waxtarka ahay kuwa adiga ku hareera jooga maaha kuwana waa kuwii wax kaa doonaya adiga u hareeraysan waa kuwii adiga wax kaa doonaya laakiin dadkii dalkana wax tari lahaa adigana wax ku tari lahaa waa kuwa kaa fog kuwa u gacan tugaaleeya oo soo jeeda حقيقة هذا الحقيقة حقيقة farmaajo dadkii wax ku tari lahaa waa kaa fog yihiin arrimahaana inta badan oo horaa la sheegay laakiin dadkan kugu hareeraysan aad soo dhaweysatay waa kuwa keenaya inay ku fashilayaan waad ku fashilantay hadalka gunaanadka ee shiikhu arrintan shabaabna dee wuu ka hadlay waan la qabaa shiikha arrimaha qaar kuma wada raacsanay laakiin waxaa la qabaa inaan marna dib u heshiisiin wax la yidhaahdo lagu eegin shabaab waxa weeyaan dadkuna waxay yidhahdaan masaarida waxay yidhahdaan gacanta aad goyn kari weydid waa la dhunkadaa shabaab intaa le 10 sana la dagaalamay hadda wax kasoo naasacadina ma jiraan kamana soo naasacadda wax badan baa isku khaldan wax badan oo moodayo hadda kuu gacan haadinaya baan daacad kugula socon soomaalka oo iyaga qaabka ugu xidhan marka waxay ahayd arrinta shabaab sheekhu sidan uu ku matelay arrinta guud ahaanba arrimahoo dhan arrintaasu yani marnaba wax la og yahay marnaba heshiis dhab a laguma eegin shabaab in lagu eego waya si ummadda soomaaliyeed loo badbaadiyo ka shabaab ku dhimanaya waa soomaali kan ku dhimanaya ciidamada iyo dadka la dagaalamaya waa soomaali marka dhiigga soomaaliyeed in la badbaadiyo waxaa ku jirtay dantaa ku jirtay in maqaari ay loogu fadhiisto walaah
laakiin dowladihii yimi iyagoo amar dusha kaga imanaya fulinaya marnaba ma qabanayo wax maaragtay inuu heshiisiin bal iska daayo dee intii kale ee shacabka kala daadsanayd baan dhigo heshiisiintoodii la rabin sababta waxay tahay beesha caalamku dowladdan iyagaa samaystay markay soomaaliya tashan weyday iyagaa dhistay dowladda waxayna rabaan inay danahooda ku socoto waa lagu boobayaa dalkaa lagu boobaya wixii hore u soo dhacay oo dhaweyn shalay ugu dambeysay waxaynu maqlaynay arrintan cusub ee hadda shirkan laleeyahay betroolka iyo macdanta soomaalida lagaga shirayaa nairobi baa lagu qabanayaa oo lagu xidhiiriyay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo arrimahaas waa arrimaha hadda jira oo khatara waxaas waxay noo muujinaysaa in waddankan meesha caalamku ay boobayso dadkiisana laga quustay oo ay dadkan dad maaha waxba qabsan kara marka hadalkayga waxaan gunaad uga dhigayaa hadaluu shiiku yidhi shiiku wuxuu yidhi waxaa lagaaga baahan yahay madaxweynaha isagoo ula jeeda waxaa lagaaga baahan yahay waa la ogyahay in dusha lagaa haysto hoostiina dadkii soomaaliyeedna waa kaasoo saasay u dayacan yihiin oo iyana waa ku haystaan marka waxaa lagu saaray buu yidhi gaari tusaale ahaan ku socda boosaaso yaa wixii rarka saaran iyo waxa ka shaqaynaya waxba kama bedeli karto waxaa laga bedeli karaa oo keliya waxa weeye oo dareewalkii baa tahay gaarigaa lagu bedelay kii kaa horreeyay xasan sheekh buu ah kii kasii horreeyay shariif buu ah kii kasii horreeyay cabdullaahi yuusuf buu ah cabdilqaasim saasay ahayd marka wuxuu yidhi gaariga kan dareewalka lagaaga dhigay dabcan ma yeeli kartaa gaarigaasu boosaasu ku socdaa u jihaysan yahay halkaasaa lagu boorogaraam garay ma yeeli kartaa inaad kismaayo celisi taas macnaheedu muxuu yahay wax soomaali dan u ah waxa la wadaa dan soomaali uma aha ma keeni kartaa wax soomaali dan u ah waxaasoo dhan intaad dhinac iska dhigtay ma ku dhiiran kartaa if iyo aakhiradaada iyo dalkaagabana taasa anfacaysa ma ku dhiiran kartaa wax aanay doonayn dan u ah dadka soomaaliyeed insha allah ha ka cadhaysiiyo beesha caalamka iyo nin kastaba insha allah aad ku weydid masabkaaga ma yeeli kartaa inaad samaysid maaragtay xataa haddaad masabkaaga ku weydid raad bay ka tegaysaa ma yeeli kartaa inaad gaarigaa dudid oo gaarigaa u jahaysan boosaaso inaad u jahaysid kismaayo taas waxa weeya maslaxaddii soomaaliyeed inaad qabatid heshiis dhaba aad ku eegtid shabaab beelahan wax kala wada tirsanaya heshiis dhaba oo shirdigu heshiisiina oo dhab ah oo ay wax ku heshiiyaan may heshiin ilaa maanta soomaaliya ma heshiin distoor iyo waxa la qoranayo iyo wax distoor waxaa la qortaa marka lagu heshiiyo baa la qortaa laakiin soomaaliba ma heshiin soomaali nin walba waxaa ku qafilan wixii uu maalintii dagaalka ahligii uu bilaabmay wixii qolo waliba ay doonaysa baa ilaa maanta ku qafilan waa la gaari waayo qolona waa ku guulaysan weyn laakiin wixii waa ku qafilan yihiin waxaa ninka saara baa la rabaa oo keena qaab fiican oo dib u heshiisiina laysu badheedho la jeexjeexo wixii jiray aan waxba la dhaafin la xisaabtamo la markaa qolo walba ay garabshiyo bixiso oo wixii khaldan sidaa lagu eego dabadeedna waa in la iscafiyo wixii muuqda ha la kala qaato sidaas ayay dowladnimada soomaaliyeed ku imanaysa laakiin tan ay beesha caalamku inoo wado lagu gaari maayo dadkuna saas un bay u qaynin ninka yimaadaana wuu ku dhex wareeri marka waxaan leeyahay madaxweynaha hadalkaa shiika wax badan oo dhaqaata buu leeyahay waxaan rajeynayaa inuu madaxweynuhu ka fikiro hadalka sidan ay hadda dowladdiisu tahayna malay maayo ka shaqaynayso ma qabaan meesha dad badan bay ku xoolaystay laakiin anigu runta waan sheegayaa cid kasta ha ka qalaadhaato kuwii horena qabiil kulama dagaalami isagana qabiil ku taageeri maayo runta waan sheegayaa خير بان يدير رجالي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.